mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in nicmadooyinka iyo waxyaabaha wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isiiyey aan qarsado sababtoo ah nicmad walba waxay leedahay waxay tahay waa xaasid adigana aabbahaaga wuxuu kugu yiri waxay tahay ha u sheegin riyadaada walaalahaaga mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in dadka qaarkood aysan kuugu nacaynin xumaantaada iyo ceebahaaga laakiin ay kuugu nacayaan wanaagaaga iyo quruxdaada sababtoo ah walaalahaaga adiga nebi yuusufow maysan kuu nicin ilaa jacaylka badan uu ku jeclaa aabbahaaga mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in marna aanan isbedelin waqtiga si walbo ay isku badbadasho aniga inaanan isbedelin sababtoo ah adiga xabsiga markaa ku jirtay waxaad ahayd qof wanaagsan markaad ka soo baxdayna waxaad ahayd waxay tahay qof wanaagsan mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada waxaan ka bartay waxay tahay in mararka qaarkiis ay ku dhibaataynayaan ay ku xanuujinayaan dad aadan jeclaan lahayn inaad aragtid ayagoo dhibaataysan adiga markaad ka badbaaday dhibaatooyinka dadka oo dhan maadan ka badbaadin dhibaatada walaalahaaga mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in dhibaatadayda iyo murugteeda aanan u sheegan ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maahana innamaa ashku bathii wa xusnii ila allah mahadsanid nebi yuusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay inaan cafiyo dadka adigoo awooda inaan ka aarsado adiga walaalahaaga markay kuu yimaadeen adigoo boqor ah waxaad dhahday waxay tahay waan idin cafiyey ayaad ku dhahday maxaa kaa qurux badan nebi yuusuf taa awgeeda ayaa ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu tilmaamay waxay tahay qisada nebi yuusuf axsana alqasas mar walba aan aqiyo waxaan ka bartaa waxay tahay waxyaabo aad iyo aad u badan aan aqina insha allahu tacaala aana ku dadafurno qisada iyo suuradda quruxda badan macaanka badan suuratu yuusuf